Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa deeq raashin ah soo gaarsiiyay maamulka Somaliland. Deeqdaasoo maamulka Somaliland ay soo wakiilatay hay'adda DP World ee dalka Imaaraadka laga leeyahay. Iskuulka Gol Khaatumo oo ka mid ah goobihii ay maamulka Hargeysa ay ka qaybinayeen raashinka ay u soo wakiilatay hay'adda dalka Imaaraadka laga leeyahay ee DP World ayaa waxaa ka dhacday tacadiyo ciidanku u geysteen shacabka. Hooyo dhibaataysan oo dhibaatada haysata awgeed halkan soo aaday oo rabtay inay raashinka la qaybinayo oo hay'adda DP World ay soo wakiilatay maamulka Hargeysa in inta eebbe uga qoray inay ka qaadato iyadoo rabta ayaa ciidamadu u geysteen tacadiyo. Muuqaalkan ay noo soo direen goobjoogayaal ku sugnaa goobta ay ka dhacaysay tacadiyadu ayaa sida tan muuqaalku ahaa. waxaa ka dhacay waad maqashaan dagaalka askarta oo kala dhaxeeya iyo shacabka waad aragtaa aniga sida almuna bisbara wataa Waxaan filayaa daawadayaal inaad aragtaan tacadiyada askarigaasi u geysanayo. Hooyo aan u jeedin inuu garabka kaga dhuftay qori waad aragtaan. Hooyada oo iyaduna ama kaabtay iyo sababta askarigu ku soo galay garan weyday ayaa ciid ku shubtay askariga. Laadka uu la dhacay waad aragtaan hooyadaasi. Waxaa xusud mudan laadkaasi hooyadaasi inuu qaybo fara badan oo jirkeeda uu ku dhacayo. Askariga ayaa qoriga waxaa kula dhigay askari kale oo deegaanka ka soo jeeda. Waad aragtaa sida uu gacanta ugu taagayo siduu qoriga uga cabaysanayo iyada oo ay garab uu ka helayo askarta kale isku deegaanka yihiin oo iyaguna garab taagan. Hooyada kale oo iyadana askartu ku xoonsan tahay oo ay darbaxada la dhacayaan iyada naftigeeda waad aragtaan. Ciidamadani waa ciidamo ka soo jeeda deegaanka. Waad aragtaan hooyada kale oo dhibaataysan oo waayeelka uu gacanta haddana u qaadayo askarigaasi. Waxaa xusud mudan inay goobta tacadiyooyinkaasi ka dhacayeen oo dadka waayeelka iyo dadka maatada ay askartaasi ku tumanayeen inay ku sugnaayeen maamulka Hargeysa wasiiro uga soo jeeda deegaankan waa Sool iyo Sanaag iyo Cayne waana wasiirka warfaafinta iyo xildhibaan kale oo isna isku deegaan yihiin oo deegaanka ka soo jeeda. Waa tacadiyooyinka ka dhaca goobaha ay bulshada isugu yeedhaan madax isku sheega Somaliland waana tacadiyooyinka ay geystaan ciidamadooda maamulka Hargeysa daawadayaal.